بشار حافظ علي سليمان dhakhtarkii dilaaga isku bedelay madaxweynihii nasiib ku saaciday balse hadda jooga dhamaadka xukunkiisa aabihiis ayuu ka dhaxlay xukunka wuxuuna kaga dayday arxan darada iyo kalitalisnimada 350 kun oo qof oo shacab ah oo aan waxba galabsan ayaa loo dilay si uu kursiga ugu sii fadhiyo waxaana isaga dartii loo barakiciyay 7 milyan oo qof qofka aan ka hadlayno waa madaxweynaha dalka Suuriya Bashar al-Assad oo ay hadda xaaladdu ku xun tahay oo ay socdaan كعدونو حلك لوغو توريو. أيها الإخوة المواطنون إخوتي بالولاء والانتماء بشار الأسد هذا داديسو وكنتن يسجل سنة شير وحاو كل شيء مقالة دمشق كوبي طبانكي سبتمبر كوسجل بقول إحنا يشنتي هيرك كوادة جامعة وحاو كقلن شبيه سنة كي كوسجل بقول 6 دي وعونا كبحي جامعة دمشق isagoo bartay daaweynta indhaha muddo 4 sano ah ayuu ka shaqeeyay isbitaal ciidan kadibna London ayaa waxbarasho loogu diray 1994 waxaa shil gaari ku dhintay walaalkiisii ka weynaa Basil Xaafid al-Assad oo ahaa ninkii uu aabihii u diyaarinayay inuu kala wareego xukunka Suuriya dhimashada Basil al-Assad waxa ay fursad siisay Bashar al-Assad oo aan horay u lahayn khibrad ciidan iyo fikrad siyaasadeed toona waxa uu ku soo laabtay Suuriya waxaana uu galay tababar degdeg ah oo military iyo isku diyaarinta hogaaminta dalka Suuriya 6 sano kadib bishii Juun 10keedii sanadkii 2000 waxa geeriyooday aabihiis Xaafid al-Assad oo Suuriya ka talinayay tan iyo 1971 waa 30 sano oo bilala geerida Xaafid al-Assad ka hor dastuurka Syria waxa ku qoraa in madaxweynaha Suuriya uu noqon karo qof da ahaan ka weyn 40 sano balse si uu u hirgalo dhaxalkii uu diyaariyay aabihii waxa la bedelay dastuurkii si talada dalka loogu dhiibo wiil yar oo 34 sano jir ah muddo 6 sano ah ayaa lagu siiyay darajada gaashaan la sare iyo xoogaa fikir hogaamineed ah 10 bari kadib Bashar al-Assad waxa loo dhiibay hogaanka xisbiga Baas bil kadibna July 17 sanadkii 2000 waxaa doorasho bilaa tartan ah madaxweyne loogu doortay Bashar al-Assad kaasoo muddo xileedkiisu ahaa 7 sano laakiin badi shacabka Suuriya aad bay uga soo horjeedeen in Bashar uu dhaxlo aabihii oo ahaa kaligii taliye waxaase shacabka Suuriya ay qabeen rajo ah in Bashar uu wax ka bedeli karo dhaqaale xumadii ka jirtay Suuriya iyo in hogaamintiisu ay noqon karto mid furfuran oo xorriyad leh Bashar al-Assad muddo xileedkiisii koowaad waxay isqabteen Israa'iil oo dhulka haysata Suuriya Golan Heights iyo reer galbeedka gaar ahaan duulaankii Mareykanka ee Ciraaq sanadii 2003 iyo dilkii ra'iisul wasaarihii Lubnaan Rafiq al-Hariri oo maamulka Bashar al-Assad lagu eedeeyay 2005 taasoo dhalisay in ciidankii Suuriya ay ka soo baxaan dhulka Lubnaan oo ay joogeen tan iyo 1976 madaxweyne Bashar al-Assad sanadkii 2007 waxaa mar kale loo doortay madaxweynaha Suuriya kuma sanasan oo sanadkii 2011 waxaa dalkiisa si weyn u soo gaaray kacdoonkii guga carabta Rabiicul Carab kacdoonkaas oo xilalka looga tuuray hogaamiyaal badan oo carbeed Bashar al-Assad wuxuu isku dayay inuu kacdoonka dimiyo ilaa uu bedelay dastuurkii aabihii qoray 1973 balse Bashar al-Assad dadaalkiisu waxba uma tarin ilaa kacdoonkii uu u bedelay dagaal sokeeye taas oo u suurta gelisay inuu dagaalamo muddo dheer sabab la xiriirta in Suuriya tahay meel ay ku loolamayeen dalal badan oo bariga dhexe dana amni iyo kuwa siyaasadeed kale xukunka Bashar al-Assad inuu sii waaro waxa sabab u ahaa 2 arrin waa midda koowaade kooxaha kacdoonka Suuriya oo si weyn u kala qaybsanaa iyo taageerada uu helay oo lahayd dal iyo dibadba gudaha dalkiisa waxaa si weyn u taageeray kooxda uu ka dhashay Calawiyiinta iyo guud ahaan Shiicada bariga dhexe dowlad ahaanna waxa taageero weyn siiyay Iiraan iyo Ruushka oo xukunka Bashar al-Assad u arkayay fursad ay ku ilaashan karaan danahooda amni iyo kuwooda siyaasadeed gobolka sanadkii 2014 kooxda Daesh ayaa qabsatay dhul balaaran oo ka tirsan Suuriya waxayna ku kaceen falal argagax lahaa sida dil birayn afduub iyo burburin taariikheed taasi oo keentay in Bashar al-Assad uu mar kale helo taageero iyo fursad siyaasadeed oo u suurta gelisay inuu xukunka sii joogo ilaa maanta
lacag ayaa madaxiisa la duldhigay sanadkii 2015 kooxda al-Nusra Front ee al-Qaacida ayaa soo saartay lacag malaayiin dollar ah oo ay duldhigtay madaxa Bashaar al-Asad iyagoo sheegay inay lacagtaas ku abaalmarinayaan qofkii dilaa madaxweynaha Suuriya Bashaar al-Asad. madaxdii al-Qaacida ee al-Nusra Front ayaa sheegay inay siinayaan 3 milyan oo euro qofkii dilaa madaxweyne Bashaar al-Asad. sanadihii 2016 ruushka ayaa si weyn ciidan ahaan ugu taageerayay maamulka Bashaar al-Asad. taasi waxa ay suuro gelisay in la jibiyo awooddii kooxaha mucaaradka Syria. burburka kooxaha mucaaradka waxa ay keentay in colaadda Suuriya ay ka heshiiyaan dalalka kale ah Turkiga, Ruushka, Iiraan iyo Mareykanka. taasina waxa ay suuro gelisay in sanadkii 2020 colaadda Suuriya ay si kumeel gaara u istaagto. 4 sano kadib toddobaadkan ayay waqooyiga galbeed ee Suuriya waxaa mar kale ka bilowday dagaal u eg kii soo gabagabayn lahaa cimriga Bashaar al-Asad. jabhadda mucaaradka ee la yiraahdo Xayaat Taxriir al-Shaam ayaa qabsaday magaalooyinka Xalab, Idlib, Xamaa, deegaano iyo saldhigyo ciidan oo muhiim ah kuwaas oo gaarsiisan ilaa bartamaha dalka Suuriya. waxa ayna caasimadda Dimashq u jiraan wax ka yar 150 kiiloomitir oo kaliya. hogaamiyaha jabhadda Xayaat Taxriir al-Shaam ninka lagu magacaabo Maxamed al-Julaani ayaa ku faanay guusha ay dagaalka ka joogaan, waxaanu ciidamada Suuriya iyo maleeshiyaadka taabacsan ugu baaqay inay hub ka dhigaan isla markaana ay isku soo dhiibaan kooxdiisa. falanqeeyaasha iyo khubarada militariga ayaa aaminsan in qaabaynta isku dubaridka iyo taageerada nooc walba oo dagaalku u baahnaa ay bixiyeen sirdoonka Turkiga ee la yiraahdo MIT. maxaa yeelay Turkigu waxa uu aad uga soo horjeedaa kooxda Kurdida ee SDF iyo PKK kuwaas oo ka dhisan gudaha Suuriya, si gaar ah xuduudaha Turkiga. xukuumadda Turkiga waxay kaloo doonaysaa in dalkooda laga soo celiyo malaayiinta qaxootiga Suuriya ee ku nool waddanka Turkiga. dagaalka Suuriya ee ku lug leeyihiin ciidamada Bashaar al-Asad, kooxaha Shiicada ee taageera Asad, kooxaha mucaaradka iyo dowladaha kala taageera waxaa kaga dhintay 650,000 oo dagaalyahan iyo ilaa 350,000 oo qof oo shacab ah. waa 1 milyan oo qof ugu yaraan, halka ay ku barakaceen ilaa 7 milyan oo shacabka Suuriya ah. ku dhawaad 14 sano xaalku maanta waxa uu u muuqdaa dhammaadka xukunka Bashaar al-Asad oo aan haysan fursad walba oo uu Suuriya ku sii maamuli karo waqti dheer. haddiiba ay dhacdo in si buuxda looga guulaysto Bashaar al-Asad, waxaa adkaan doonta in la helo maamul midnimo qaran oo madaxweyne Bashaar al-Asad bedela, sababtoo ah gudaha Suuriya waxaa ka jira 10 kooxood oo mucaarad hubaysan ah kuwaas oo aan heshiis ahayn. sidoo kale Suuriya waxaa saameyn toos ah ku leh dowlado si weyn isku diidan. haddii ay talada dalka qabsadaan kooxda uu hogaamiyo Maxamed al-Julaani, waxa ay la kulmi karaan dagaal ay ku midoobi karaan kooxaha Shiicada, dowladaha taageera iyo kooxaha Kurdida. si kastaba ha ahaatee, shacabka Suuriya uma wanaagsana in dalkoodu uu burbur iyo dagaal sokeeye ku jiro muddo dheer.